ibn Mas'ud radiyallahu anhu sakaraadkii markuu uu riday Uthman ibn Affan baa soo booqday markaasuu weydiiyay ku yiri Abdullah yow maxaad u baahan tahay bali sheeg buu geed halkee kuugu daran maada tashtaki maxaad ka ashkatoonaysaa maanta bali sheeg oo halkee kuugu daran wuxuu yiri meesha iigu daran Uthman oo ma ku sheega dhunuubtayda iigu daran buu dhunuubtayda ibn Mas'ud markaa buu ku yiri famaada tashtahi hadana maxaad jeceshahay bal noo sheeg ila qofku markuu xanuunsan yahay labadana la weydiiyaa moogta warniyo halkee kuugu daran oo laga hayaa iyo nafsadaadu maxay doonaysaa naftaadu maxay doonaysaa inaga maanta qofkii la halkee kuugu daran halkuu sheegi lahaa war halkee sheegi lahaa halka ugu daran ee laga hayo farta ku qaban halka baa la iga hayaa ka kalena wuxuu leeyahay dhakhtar baan kugu yeedhiyeeso ma dhakhtar baa naf ku soo celinaya ibn Mas'ud wuxuu yiri markii Uthman uu ku yiri halkee kuugu daran wuxuu yiri dunuubtaydii baa igu daran buu yiri maanta hadana maxaad jeceshahay bal ii sheeg naftaadu maxay doonaysaa markaa buu yiri raxmata rabbi naxariista rabbigay baan doonayaa buu yiri maanta yaan doonayaa naxariista rabbi طمع waxaa la doonayaa طمع inuu bilaabo marka aad xataa qofku marka uu xanuunsan yahay la dul tago waxaa sunnaa in la yidhaahdo laa ba'sa calayk dhibaata kuma saar ha cabsan ha walwalin xanuunkan miyaa waa lagugu maydhayaa dembi dhaaf baad ka helaysaa ilaahay baad ugu dhowaanaysaa darajaadkaaga kor lagugu qaadayaa waad ka kacaysaa salaama insha allah dhibaato arki maysa waa in qofka la yidhaahdo إنما مركا قفك مركا ودمنا يانا ودشي سواحا لقول لقنا توحيدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله به لما يقال لا به تداري ولا إله إلا الله به لا تداري واحد لقى يا شيطان كنو سكة الأوتو سوق كيدادو وما قال بانا مسلم بانا هي وعروا قفكم كل انتبه أدوك سوقوا عرونا لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كيني نقدمنا يبو نبي يري وحاد الله قنتان لا إله إلا الله مقاشية ويان isaga dushiisa ku dhahada kelmadaas soo markaa kaaga soo dabeeceliyo isaguna kelmadaas hadduu kelmadda qofku markay ka baxaysa naftiisu ay noqoto kelmadaas waa kii nabigu lahaa jannu galay man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna wa fi riwayatin man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna hadduu u dambaysa qowlkiisa kelmadaasina jannu galay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam jannadu markaas waa shayga la doonayo qofka adduunyada intuu joogo cibaadada ilaahay aad caabudaysa labada ku caabud طمع ilaahay naxariistiisa rajee oo jannadiisa rajee oo dambidaafkiisa rajee oo maghfiradiisa rajee oo ridwaankiisa rajee cabsooyo dhinaca kalena ilaahay caaradiisa ka cabso oo cadaabkiisa ka cabso oo waxaad mar walba soo dhigtaa ilaahay aad u tagaysid waa kariim naxariis badan weeyaan camalkan marka aan qabanayno mar walba waxaad ku binaynaysaa labada shay macaasi markay noqotona nafta waxa lagu cabsiyaa cadaabka ilaahay camal wanaagsan oo taaca markay noqotona nafta waxa la hordhigaa thawaabka ilaahay camalkan uu ka siinaya qofka yaa la hordhigaa nafta labadaas oo adduunka yaa la macruuf ya munkar macruuf waa waxa wanaaga ee shariicadeenu ku amraysa inaad la timaadid معروف كمر كان قبنا سنة جنة لسردقة وح منكر شريعته أي كاربتي مركي النفتي الشيطان كل عي كلي هنا عرض إلهي عذاب إلهي بالهردقة نفتي إن جنة إلهي مركي نوب باللنقا جنة الله إنك يدي أمين هذا جنة ودار مقع بدن بقرآن إلهي كل شيء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين في جنات النعيم إن للمتقين في مقام أمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قرآنك إلهي تبارك وتعالى وعلي انت النار تأكورما إلا أكبر إلهي جنتك أكورما
hadday isleekayn. aayadaha qur'aanka markii la baadhay aakhirada ka warramaya lafdiga ku yimid ee alaakhira waxaa la ogaaday inay 115 goor baa ilaahay yidhi alaakhira. adduunyada markay noqotona lafdiga adduunyada aayadaha qur'aanka waxaa ku yimid ee magaceeda 115 jeer. jannadu waa daar ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamku waxay ku raaxaysanayeen oo dhan lagu dhammaystiray. yaana galaya ina alabraara la fii naciim. dadka adduunka dusheeda ilaahay kaga cabsada ee ilaahay kaga baqa ayaa ilaahay jannada u diyaariyey. daar asalaam daarta nabadgelyada, daarulkhuldi daarta waaritaanka, daar alxayawaan baa ilaahay yidhi daartii nolosha u saaxiibka ahay. sideed magac baa qur-aanka lagu sheegay jannadu inay leedahay. sideed magac. jannatu cadnin, jannatu naciim, jannatu lkhuld, jannatu lfirdows. waa kii nabigeennu lahaa calayhi salaatu wassalaam idaa sa'altumuuhu fas'aluuhu lfirdows. haddaad ilaahay weydiisanaysaan ood baahi u sheeganaysaan buu nebigu yidhi firdows ilaahay weydiista. فإنه أعلى الجنة جنويك أيضا أقصر ريسا وأوسط الجنة أيضا أنا أقبر تميسم نبي قولي وفوقها عرش الرحمن سقف جيق وحا هذا عرش الرحمن كا ومنها تتفجر أنهار الجنة وبيالك الجنة مروننا أيضا كبر أمام رسولكم. فردوس الأعلى الله ينقيه. فردوس dadkii jannada qiimaheega gartay waxaa ka mid ahaa saxaabatu muxamed. haweenay madow ayaa nebigeenna u timid oo markaa ka cabanaysay xanuunka la yidhahda qalalka suuxitaanka oo dhici jirtay. markaasay nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah anigu waan suuxaa bay ku tidhi waan dhacaa. waa xanuun aad u daran weyn xanuunkaas. allah inaga badbaadiyo. dadku hayaan allah ka qaado. waa xanuun qofku meelsha uu ku dhaco uusan ka warqabin uu miyir daboolsamaya gebigiisuda maankiisoo dhan baa tegaya. markaasay nebigeenna u timiday tidhi innii usrac wa innii atakashaf fadcu allaha tacaala lii an laa atakashafa. yaa rasuulallah jidadka ayaa ku dhacaa waan suuxaa deedna markaana marada ayaa iga baylahanto waa lay arkaa. ilaahay ii weydii bay tidhi xanuunkaa ilaahay inuu iga qaado maraduna ay iga baylahday. markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi in shi'ti sabarti walaki aljanna. haddaad doonto janno ayaan kugu haddaad doonto waad u sabri xanuunkaasoo jannaa ilaahay kugu siin doonaa. innamaa yuwaffa asaabiruuna ajruhum bigayri xisaab. dadka adduunyada dusheeda ku sabre ku adkaysta balaayada iyo masiibada la soo darista sawaabkooga jannaa ilaahay ka dhigaya. ajarkooga bilaa xisaab baa ilaahay siinaya. haddaad doontana waan kuu ducayn ilaahayna casa wajalla inuu kaa caafiya xanuunkaa baan kuu baryi. markaa bay tidhi waan isku noqonay ii kaadi. deedna way soo noqoto nebigay u timiday. markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi yaa rasuulallah waan iska adkaysanaye ilaahay janno ii weydii bay ku tidhi bas. marba haddii janno lagu helaayo halkaa ku dhaaf. laakiin mid ilaahay ii weydii meeshaa doon ha iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas. iyadoo miyir daboolantay oo maankaygii uu tegey ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa. maantana innaka waxaa laga yaabaa gabdhaheenna qaarkood iyo maaragtaanay gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jidhkayga halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegta. waana calaamaatu aakhira zamaan nebigaa sheegay. laba qole adduunka iman buu nebigu idhoo soo socota. qolo jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdho maaragtaanay ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nebigu yidhi kuwaa jannada gali maayaan. jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan. carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa. labadaas sinfi buu nebigu leeyahay hadda arki maayeen. waa rag gudad bay wataan oo dadka dariiqyada intay ka kaxeeyaan ayay la dhacayaan oo gardarray qofka u garaacayaan
iyo gabdho maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun muumilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalloocinayaan buu rasuulku sidaa isku qalqalloocinaysa ragguna sidaa usii eegayaan ula qalloocsanay mid baa lagu yidhi war ha eegina indhaha gallaabo wazayannaaha linnaadiriina buu laa xawla walaa quwata illaa billah jannada geli maayaan buu nebigu yidhi kuwaas carfiga jannadana heli maayaan jannadana markay carfigeega waxaa la helaa 500 oo sano markay meesha loo socdo qofku u jirto gabadhan muuminaddee saxaabiyaddee madow ayadoo maankaygii iyo miyirkaygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nebiga ku tidhi xanuunkaa haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhacee maradu inay iga baylahmin bas intaa ilaahay wey xishoodku fiicana haweenkana kusii fiicana waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas allaha raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nebiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nebiga soo gaadhay buu ku odhan jiray alaa uriika imra'ata min ahliljanna haweenay ahliljanna ama ku tusaa markaa bay odhan jireen haa haweenaydaa madow ee halkaa maraysa waa ahlaljanna buu odhan jiray ibnu cabbaas cataa ibnu abi rabax buu u tilmaamuu ka yidhi cataayow haweenaydaa madow soo ma arkaysid haa waa ahlaljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna unbaa la sheegay hawa dumarkii jannada gelaya hamaa la sheegay khadiija radia allaahu canha umma almu'miniin mubashira biljanna keligii jibriil calayhi asalaam ayaa samada uga yimiday markaa buu nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wax kale ma sido allaha salaamku salaam ka wadaa ayuuna u sidaa khadiijata alkubraa radia allaahu canha umma almu'miniin buu u sidaa uu yidhi yaa muxamed umma almu'miniin khadiija allaha salaamkaas soo salaamayey waxaana laygu yidhi u bishaaree qasri jannada ku yaalla ilaahay u diyaariyey ummu anas binu maalik rumaysaa am rumaydaa ayadana waa mubashira biljanna oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ku yidhi ummu sulaymey xalay toole jannada ayaan galow ilaahay i tusay adoy hor socdana waan ku arkay buu rasuulku ku soo yidhi faatuma ina muxamed calayhi salaatu wasalaam waa iyaduna waa mubashira jannada waa loo bishaareeyey oo nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi faatumata bintu muxamed sayidata nisaa'i ahlaljanna inantaydaa faatuma buu rasuulku yidhi haweenka ummadda nebi maxameda jannada geli doona waa gabadha ugu darajo sarraysa u barwaaqa badan buu rasuulku sumaya radia allaahu canha iyaduna waa ahlaljanna oo iyada iyo ninkeedii iyo inankeedii cammaar markuu nebigu dul yimiday ayagoo magaalada maka dhagaxdeeda iyo jagaceega lagu cadaabaayo waa markay diintu qariibka ahayd ee maka la cadaabaya mu'miniinta ee qurayshi ay cadaabaysa saxaabada rasuulka ayuu nebigu kor yimiday sumaya waa ummu cammaar iyo odaygeygii yaasir iyo inankayga cammaar oo la cadaabaayo markaasay yidhaahdeen addahru haakadaa yaa rasuula allah sanadka oo dhan annaku ma dhibka iyo cadaabkaa baan ku jirayna markaa buu nebigu yidhi sabran yaa aala yaasir fa inna mawcidukum aljanna sabran buu nebigu yidhi adkaysta abaalkiinu ininka waa janno weeyaan hadday jannada ay maqlaan waxallii waxaa dhibaato adduunyada la soo daristoo dhan way halmaamayeen iyagu way bugtaa haweeneydaa madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nebigu ku yidhi haddaad sabri lahayd jannaa ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daa bay ku tidhi bas halkiisa ku dhaaf rabiicata binu kacb alaslami radia allaahu canhu khaadimkii nebigeennu ahaa calayhi salaatu wasalaam ahla sufihii magaalada madiina qareen iyo qaraabo aan ku lahayn nin ka mida ayuu ahaa
masaajidka nabigeena mu'akharadiisa dambe ayuu deganaa ahla sufuuh waxay ahaayeen rag maalmo dhan ayay afkooga aynan heli jirin cunto ay geliyaan. abaa hurayra ka mid ahaa. markay nebiga ag fadhiyaan baa la yidhi xataa cawradoodu sidaynan u muuqan marada yaray sitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yidhi iyagoo cawradooda nebiga ka qarsanaya. dhar la'aan, cunto la'aanna nebigaa u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiruu nebigu siisiiye laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd. barwaaqaan ku jirnaa innagu, barwaaqo nicmad shukrigaa inagu yar maanta. 2 timiruu nebigu u dhiibay ahlu sufiya. war abaa hurayra labadan qabso, war rabiica oo labadan qabso, war fulaan oo labadan qabso. abaa hurayra allaha raalli ka noqday wuxuu yidhi xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay, xabadna halkaa guntiga ayaan ku duubtoo ku laabay. markaa buu nebigu igu yidhi lima rafacta haadihi ya abaa hurayra, xabaddan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde? markaasuu yidhi hooyadii baan u geynayaa buu ka yidhi. markaa buu nebigu yidhi hooyadaana annakaa kuugu dhiibaynay iska cun buu ka yidhi. abaa hurayra waa ninka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaa. xadiistaa aan inta badan aan sheegayno o dhan isagaa wariyay inta badan, laakiin uu sabray, uu tabcay, diinta tacab buu geliyey, diinta uu u gaajooday, diinta uu u huray. wuxuu jeclaa inuu magaalada madiine ka xogsado uu karayay, laakiin wuxuu gartay jawaahirta nebi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda uu reebaya ilaa qiyaamaha. rabiica markaa raggaas uu ka mid ahaa, rabiicata binu kacb alaslami radia allaahu canhu. wuxuu yidhi isagaa ka sheekaynaya habeenkii markuu nebigu soo kaco calayhi salaatu wasalaam, ilaa aqalladu markaas zamankaasi aqallada dhexdooda musqulo lagu xaajoodo iyo tuwaaleed ma lahayn. bannaanka magaalada madiinaa loo bixi jiray. magaalada madiinana bahalo iyo boholo badan bay lahayd. markaa buu yidhi rabiica nebiga ayaan u soo qaadi jiray buuhi markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadaan u sii diyaarin jiray buuhi habeenka. madiinatul munawwara marka dhulku uu yahay xilliyadanna qabowgeega waa caadi maha qabowgeega. markaasaan u keenay nebiga biyihii weysadii iyo cadaygi, daedna xaajadiisii buu nebigu soo gutay. intaa nebigaan la socdaa buuhi waan way ilaalinayaan nebiga moogtahay sal alla alay slam. markuu nebigu soo noqday buu arkay rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya. markaa buu nebigu ku yidhi rabiica salnii, maanta waxaad doontay weydiisay buuhi caawa. nebi maxamed baa hadalkaa leh, ku salliya. yaa rabiica salnii, yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego. yaa leh hadalka muxamed calayhi salaatu wasalaam. waa nebigee? waa nebi ducadiisu mustajaabo ay tahay. waa nebi awood u yeeshay geed inuu u yeedho geed buu u yeedhay geed. waa nebi ilaahay uu siiyey ta'yiidaad iyo mucjizaad. dameerka hadalkiisuu maqlaayay nebi maxamed dameerka. waa nebi ilaahay awood wuxuu geliyey hadduu odhan lahaa buurta ilaahu halkaa ka qaad, ilaahay buuraha uu ka qaadi lahaa magaalada maka baa layidhi. waa nebi. rabiicow sheega caawa waxaad doonaysa. waa isku noqonay ii kaadi nebi allow. halkaa buu fadhiistay. ninkan uu nebi maxamed ku leeyahay baahidaada caawa ii sheega waa nin magaalada madiine aqal kuma leh, jago kuma leh, qaraabo kuma leh, qareen kuma leh, meeluu wax ka cuna ma haysto. hadiyadda nebiga loo keena ayuu nebigu ahlu sufahna uu wax ka siiyaa. maalmo dhan baa soo wareega, 3 maalmood, 4 maalmood, 7 maalmood. calooshooda cuntay geliyaan ma helaan. xabbad timira hadday helaan bay iyo abaal ku qabaan. ninka baahidaa ay hayso ayaa nebi maxamed fursad intuu siiyey uu ku leeyahay yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego, salli ii sheega caawa waxaad doonaysa. markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuula allah. wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi. meel baa u caddayd iyaga inaan jannada kula noqdo rafiiq, bas kugu arko, kula saaxiibo, kula fadhiisto, kula jaar noqdo, ku arko.
انت إلهي ويدي النبي قول جعلاين عجيب عنده وي كجعلاين وبدكو وي كجعلاين نفتو ذي كجعلاين وكن النبي عمر كلها ماركو عمر نبي كويري يا رسول الله dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaalla oo dhan adaan ka jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nabigu yiri Umar wali weeyaan waa wali ilaa aad naftaada iga jeclaato wali iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana ha naftaadana Umar ku dar wallahi nabi allah naftaydana waa ka jecelahay al'aana ya Umar buu nabigu yiri hadda iimaanku qalbiga ku galay rasuulku hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonayo nabigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaad wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nabigu mar labaad u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw ghayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu huwa daaka muraad kale anu malihiye muraadkaygu waaba intaas markaa buu nabigu ku yidhi faacinni calaa nafsika bikathrati sujuud وهجاج الفضاء الربيع أذكر واحد يقول سوء عاوسا سجود صوبة سبو نبي كي نبي قال جنة إيه بشاريي هكوب جابين عبادة إلهي بل سو زيادة عبادة طاعة الزيادة صلاة الزيادة خير كالزيادة ودواشها إلهي عدو دوانا يسو سي زيادة أنا كان مياه تا أدي ويدي ستي وقد قال يا إن أدي هلي دونتي أذكر السجود يقول سوء عاوي نبي كي ياكو جنة يفهمي جنة ودار نوعية ودار إلهي بعد ساعة تبارك وتعالى بقى أحد الله قد يسيب النبي السفيو وحيري لبنة من ذهب ولبنة من فضة لبدا بقى جنة اللي يستول لقى الله قد يسي من الذهب وكسم يسيح هاي النبي يقولي من العقب وكسم يسيح أهل الجنة جنة دحدي دبو نبي قولي ويعنيان ويعبيان وقت يعنيان حد مله وقت يعبيان حد مله ويعنيان ويعبيان مسحرونيان كذي يلن مايان قنوف يسين يخاخة منا يلن مايان بو نبي عتلا ما أنت تقعد تقوم معنا هذا عنتو ساعة كذب الجيل جينيسا بيت الميجا جين أقل كادوية دوغو قروح بدن بلا بيت المي ما دعي كراينو نقضو ولبا أقل كسي قروح بدن يحي سي عصري الله ديسو أيا تواليت كيسانا سي عصري الله ديسو عرفتنا التواليت كوحي ما أتقانابا بيت الراحة أقل كالراحة دي ويقانابا أدعوني وين يكون رافتا عنا دا أدوية لكن جنة دحديد وعجيب عنتدى الجنة أبو نبي يقولي ولا عني ولا عبي لا يتغوضون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يدخلون ما النبي يقولي عنتدى الجنة ولا عنيا ولا عبي يا شراب كيغا ما هالساعة وحل عنيو وقلال سنو كما ياسنا العني دونا عندا العني أبو نبي يقولي هاي سحرا نقني ميسو كادن نقني ميسو دوفي السين يقنبوفي خاختنا نقني ميسو وهذا ما حي نقني ساعندي عندي waxay noqonaysaa buu nabigu yiri uu daacaya qofku daacada adduunka marka daacdo islaantaada dhan baa ku oranaysa war daacada qarbunkeyga xagga noogala jeeso soo ma oran karto uf armaanti maxaad soo cuntay xabaa ka uraya xagga u ka ya allah daacada jannada buu nabigu yiri waa misk udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaala ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihi iyo sharaabku cabayay mee ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyaa intaaba hoostaada maraya markaasaad cabaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmeyga ayaad u baahan oo kaadi baa ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunnadiina daacay noqotay udgoon
sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wejigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaabay ahlaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay beddilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way beddilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeena nagu soo noqoteen dharkiinnii waa isbeddilay kalarkiinni waa isa soo beddilay waa ini sidee markaaba iyagoona odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii beddilay idinkana suuqa adduunyada markaan tagna maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi asamaa waa 30 mitir baa lagu qiyaasa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyo ka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku gabadha muuminadda ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xuuralcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaya buu rasuulku marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi mu'minku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xuuralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayey ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaas u noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabbihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo
واتن آيات القرآن كإلهي كل شيء وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إهل كاكو كونا دونك أتكو حيثة ماها إهل كان أدوية أتكو حيثة ابتلاء باللقوسي اختبار واللقوكو إيغيا إني إلهي طاعات يسكو سيجيان يينا طاعات إلهي أتكفو لسد باللقوكو إيغيا لكن إهل كاكو رنتو وحويان وكمالك قيامها مؤمنك قعنت مدي كتابك مركا لقصيو إيه حسابي رو فضل له حسابيو مركا أبو قدوم يابا إلهي يري إهل كيسي أو سقيا أيو حقوق النقون يابا إلهي الباب الجنة يجوغان كسوغيا الباب كسوغيا كتاب كيسي بو قعنت مدي كقات حساب فضل باللفوضيدي حساب فضل وامحي لما بعد البوق كيسي لما هي لما بعد هذه لا بعد وخطر إلهي بقى أسطوري ونحرستي سيبه هويي أدون بالله سوك اليوم دونا بنك قيامة بنبي يقول الله دونا أديك الرب بقى خويه رأيه سوكع مركز إلهي عز وجل سترك سا إلهي هويني دونا مركز إلهي أدونك الله الله يا هذا الك أدونك يا ربي جيس دحمر يا مخلوق مقل مايان ملائكة مقل مايان مقربين مقل مايان والله قرينا يا وحول هاي قرسين دونا ذنوبتي أدونك الدشيء هذا أدونك نقول قرسني با إلهي وشيء دونا كاس إلهي ولدنا أدونك يجيو ذنبي يا عين كاس يا عين كاها إما لنهب لا يهل كأت قسم يسين محسوسته هاي مركز ولاي هاي ها مركز إلهي ولدنا أدونك الدشيء هذا نواكو أسطوري ما أنت نواكو دم بدافي كتاب كيسا قعنت مدين لغا سينايا لأنه حقا يا جنة وورد يا مركز الله ينقل لك قواس إذا ندم بالله نوين وجرا عصومين منهم ذنبي ونقل دعيا لكن نحريست إلهي بالله إلهي نحريست يسار رجيننا مر والبكبوسا مين ذات كان كبوذن من الرحريست إلهي ذات كان هيك كبوسن منه ومك مركا كتاب قال سيو اهل كيسيبو كنا غنيا ابن عباس رضي الله عنهما ايا يري مد كستو كتابك قعدت مدق لغا سيي حورادي سيبا يريد او تاغنو سوغيسا مركا ابو دايمونيا دايمشدو او كليا ايا قادنيسا ليدي 7 سنه عروسك habeenka ugu horeysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 دقيقة سام هو يذكرتها. أربع حد دقيقة بيكون رنداي فراك هاجل. حنا. يا. يعني ما بهالليل يصير بدونك تدوش هذا 20 دقيقة. وروح أنت اللي إيجا ولا إيجا تدك بدونك جوجا إلهي ما بسيبه. فمحابو ملاين قبل ده 7 سنة عداون يصير وروح ندي جمال كيك. ابن عباس وحولي لكن أيات داون دون ما تقانا. وكأدونك إنتو جوجو محارمت عنده سكلابتا كاسا حور العين تداوش إذا كل راح يسدون وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والدايمون ساسو والدايمون مؤمن 7 سنوات تعانقه ويعانقها وكبودي مركع يدنو يكسو بودي معانقته قورقورينتا معانقته كل يبون ابن عباس هدنا 7 سنة كل هدنا هيسمو صدا ونو هيسن أركو جنة دي أركو نعيم تيدي أفر شيء وأدوية أنت اللي جوجي قفك بني آدم كان الله سكو قرارين يسي أيا أهل الجنة مسكح دودا كسو دعي وأفرتي وغيردي وقبوغي وباهدي وبوكتانتي أفرتها مسكح دودا كسو دعي دونتا من نعيم كأنت لك أيا إلهين نسيي أركاسي أفرتها حصوصنا يا أنبال ليلي حق سرى لقى دواقي والأورن دونا يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يا أهل الجنة ما أنت لقى بلابا جنة واحد كل حليدهين نلل دائما لما شدا بأرك ميسار نعمة جوكتا لو نقصان دنبا أنا اللهين دل يرنمو قبو دنبا أنا اللهين عافي ما قب حنون دنبا أنا اللهين الله ينسي جنة داسا إلهي نوغو
باقيا مالين والبا ولقولي هي صلاة مركا تكنيسو مؤذنكو كلي حي على الصلاة حي على الفلاح جنة يسوركين جنة كل حساب بشير رمضان باسوق شيء جنة يسوركين صدقات بابحي لقالي هي جنة يسوركين قرآن بالقولي كالي آخري جنة يسوركين آخرة وحبحي بالقولي هي جنة يسوركين مركب النبي عليه الصلاة والسلام مجلس كيسي سوى معلم فرديا أي نمكي مهاجرين تي مكة كسو هجرودي أي سركعوا النبي يكوي رادين نبي الله مقالة مكة أنكو أنك إيمانين كسو بحني ماء زمزم بانكو هايسنو إيما هين هالكن بيو وإيم مقالة مدينة عيلشنا نمي يهودا انت بدن اسكايس لعقان كو يبسننا ما هايسن marka ninkii ceelka bi'r ruuma laha ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabtayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabaane markaas uu fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaa ku biiliya marka uu nabigu ku yiri bi'nihi bi'ayn fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaas uu may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaabuu ka عثمان بن عفان رضي الله عنه وذكيها وعقل بدنا وإنشي سميل در وحكا أركايي وبصيرة إلى هاي أوسيي أي هذا النبي قلبي قصة كل بعي بعنيه بعين الجنة الجنة كنت على عيلك إيجا إيبسو مركب نيكي إسكدي نيكي عيلك لها عثمان بن نيكي وتقو يري عيلك أجا هدي لغاير هذا العكو إيبي ما إيبين لهاي أو أن إيبين لها ويبايع ويقرقر ثمن مركع وحيكوه شيء صدق كل أو درهم عثمان لعقتي بسوق هذا ودقي عيالك فريسة يقصوا ورجب وكيل وكسوقات رسولك عليه الصلاة والسلام بوكي نوحو كيري يا رسول الله عيالك بئر روما هدي أن كانوا إيشي جنة كنت على إنك الله بلغ هذا بسكدي دي أنا كما لي بلغ هذا يا مرقاب النبي يقول ها مرقاب عيالك فريه سواكا أصحاب هذا ووقف فويه عدنا صدام يقول عيالك هدوت البيسة ووقف هل استعماله رسول الله قال النبي فرحي عندها النبي مركا كرو قادو وحيري عثمان إله رالي ما كان نقدر رالي كان نقو عثمان ما أنت لقى بلا عمل دبه دون السمين با أنت أبو جنة لكم قلب رسول بعنيه بعين الجنة عند رجرت ضد كاسها سوما يا بس سياسي صلاة أتوكلين بالقرن إن درجات هو أنا كنت كسنة سوا صعدة إسبدل كجيس كافر كوكا الله ضايق دقيسة إذا عادت ولا سوا فريس يا الله عقلك آخرة كنت سني ويا عقل ما نلا الشدم بعقلك كو جدي ويا عقل ما أرجو هذا آخرة كو أركي ويدا كو حسابتين ويدا أرك صح ما جنة هدي مغلان أصحاب الرسول وهي حياة الكابس كدقية مركا جنة داساني سور دقينا مركا صوم إنه صلاة إنه صدقة بحنا إنه زكاة بحنا إنه والد كوسا مفلا إنه جنة نبى النبي قوي من دوري جهاد بان ربع وين الجهاد بحلاتو تمدها جنة دون زها جنة دون يا نبي الله وحكى لما دون يو لما دادي والد من نول يهين ما هو يا نول ما يدو كار راليات مدي بس يدو سفر كاغا رالي كاهين ما يدو اويسان كاي مدي مرقاب النبي يقول سو جنة وما سعودها ويدا كنا قولوك تيدا قبصو القاب الجنة كبير دوتا الزم رجليها ثم الجنة بنبي ثم الجنة لوك تيدا قبصو جنة القاب كبير طاعت إلهي مركات قدنا يسو واحد سرق يساوا جنة معصي مركي النفط يا شيطان كوكو يران اي شيطان يا نفط اي كل هذا الهي عاص ودنبك السماء هو حكون مركي النفط يا شيطان كوكو يرادين وين صردقتا الهي عرضي سي صردق ان بطش ربك لشديد ان ربك لبالمرصاد الهي كو حسابتن عرضت كعبسي نفط هذا مركز لبداس الله دنيا الهي نكو عبد طمعا خوفا وطمعا عبسي هي الرجو عبسي ده قرما للربا وانت العافمات كهيسد
nolosha haysid dhalinyarada aad tahay amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa rajee markaas oo quusan oo waxaad tiraahdaa naftaada waxaad ku tiraahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim sidii ninkii xajka u socday mar alle markuu ihraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yidhi labayk allaahuma labayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labayk allaahuma labayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlay markaa maad maqashay haa waan maqlay ma haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu idhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar hali markaan xajka aanu ixraamka soo xidho ee talbiyadda soo bilaababa laa labayka walaa sacdayk baa laga leeyahay oo waxaa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay kaa aqbali maayo baa laga leeyahay ee iska joog baa laga leeyahay haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oo tagaa bali sheeg buuri adaan tala kaa qaadana bali sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuri meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmadiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteennu dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baa na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaano xaq uma yeelaneen maanta toddobiyo 20 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabayaa oo lay leeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog demaan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buu dhooryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labayka wa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27 hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayo markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu yidhi albaabkiisa mahayna albaab kaloo garaacayna ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysan marka ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin caraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay kaale markaasuu nebigu u fadhiisiyey masaajidkii ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaaddaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagalee ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyoo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida hore uma arkin dib dambana u arki maayo wuhi macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi
saxaabadiisii buu nebigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucidtum muyasiriin bucidtum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin bu rasuulku bicsa walaqad bacathnaa fii kulli qaryatin nadiira wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula bicsa kalimatu lbicsa qur-aankay ku taallaa waa alfaadda ilaahay si gaara markuu uu tilmaamaya nebiyada erayada nebiyaduma loo adeegsan jiray ijtabaa istafaa iyo bicsa waa kelimaadka nebiyada khaaska u ahaa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu ku leeyahay innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin in kale maahine adduunka layniima soo saarin haddii layni soo saarayna rabbulciza wuxuu inii soo saaray inaad ummadda xaqa u dhibrisaan ee layniima soo saarin inaad ummadda markaad xaqa u gudbinaysaan aad ku adkaysaan ribciya bna caamir saxaabigii jaliilka ahaa rustum markuu u tegayna waa kii ku yidhi rustum allaahu ibtacahanaa ilaykum annaka ilaahay baa nookii soo saaray buu ka yidhi war qofka muslimkaa walaalayaal muslimow waa inaad fahamtaa ilaahay baa ku soo saaray ilaahay baa ku doortay oo maxaa ilaahay kuu doortay diinta islaamka inaad ku dhaqanto ood barato ood ka shaqayso oo diin ku noolaato oo diin ku dhimato ayaa adduunyada lagu keenay hadafkaaguna uu noqdo inaad janno hesho ansaar markuu nebigu la mubaayicoonayay ansaar waxau nebigu ansaar ay ku wada ballameen baycat alcaqaba markay dhacaysay yaa rasuul allah annagu waan ku qaadanaynaa bay ku yidhaahdeen madiinata almunawara waan kula tegaynaa sida naftayada cadowga aan uga difaacno een ilmahayaga cadowga aan uga difaacno ee reerahayaga cadowga aan uga difaacno ayaan adigana cadowga kaaga difaacaynaa waxaanan ognahay haddaan magaalada madiina kula tegno caalamkao dhan dadka ku nool ayaa dagaal nagu soo qaadi doonaa difaacaaga inaan ku dhammaanana diyaar baan u nahay dhaqaalahayagayna inaan adiga kugu bixinno diyaar baan u nahe ma laga yaabaa nebi allow maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaabaa inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaa buu nebigu yidhi ha ka yaabina buuri halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan buu nebigu yidhi halkaad ku dhimataanna waa ku dhiman halka dhiiggiinnu ku daatana waa ku daadan dhiigaygu rasuulku waa bayca erayadii ansaariyo nebiga dhex maray siiraday ku taallaa addam alhadmu baa nebigu halka dhiiggiinnu uu ku daatuu dhiigayguna ku daadan halka qabuurihiinnu ay noqdaan buu qabrigayga noqon bu rasuulku inaan maka ku soo noqdaa oo tolkayniga soo raacaa ha soo dhiganina buu idhi ansaaray waa ballan haddaad aniga maanta i qaadataan oo sida naftiinna iyo ubadkiinna iyo dumarkiinna cadowga aad uga difaacaysaan haddaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaa nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiiggiinnu ku daatana dhiiggaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinacay maraan ansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka ansaari ay martaan mari buu rasuulku waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg waad guulaysanaysaa ilaahay baa guusha ku siin doona annaguna difaacaaga inaan ku dhammaano diyaar baan u nahe maxaad noo ballan qaadaysaa noo sheeg wuxuu uhi jannaa nii ballan qaaday janno maxaa ka weyn bal sheeg ma odhan madax baan niga dhigayaa dhaqaalaan ini siinayaa talada dabaday ininkaa nii dhiibayaa ma odhan waxau nebigu yidhi waxaas waa adduunyo ka kaalay waxau nebigu u ballan qaaday inay janno wada heli doonaan ficlan nebigu ansaar uu u duceeyey sal alla alay slam gargaarka ay nebiga u gargaareen ee ilaahay rasuulkiisa u hiiliyeen ee diinta u gargaareen ayaa loogu magac daray al ansaar kuwii ilaahay nebiga u gargaaray baa loogu magac daray innakuna inaan diinteenna u gargaarna laynaga rabaa maanta oo aanan odhan xilka diinta culammada unbaa ka mas-uula macallimiinta unbaa ka mas-uula jamaacaddo khaasa unbaa ka mas-uula may qof kastoo muslim waa shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa ood barataa
وواجب كسارنو إلهي باكوغو أدون صدي إن الدين تشقد إذا أتك قيب قادتا ومالكاغا وقتكاغا دقالهاغا عقلكاغا علمكاغا وحي إلهي صلاحيتكو قليي إن الدين تإسلام قاد وحكك الشتا إذن قيامها واللقو الدين دون يوقو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بإلهي إنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إن شاء الله هذا إن الدين تكشفين ودنيود إن شاء الله سيفي عنه هذا الدين هذا نبدأ الصلاة اللوية توحيدك لما دل قاسي ده إن شاء الله فراغ مركان هيسنو مددا أفرت بلود يا لوضع بلود يا أفرت قعيش مش فصحات هاي ووسائل الدعوة سيدا ما التعليم تبقى وسائل ولا ده هاي وسائل التعليم ومحي ومدارسته منهج كمدارس ووسائل وياه منهج العلم قال نقول نقنا يا متون علم المتون بعلم المطولات مركز بلغلي ووسائل العلم وسائل الدعوة نمك آلات كنمك نقدو بيسان ووسائل الدعوة وأنا أقول لها يمديدنين لكن جماعة عيني بحضو oo qariyada jamaaca ku baxdo oo qariyada dadka ay baraarujiyaan oo maqaayada dadka ay u tagaan oo dadka salaada loogu yeero oo taariikhda salaaga gacanta la soo qabto waa wasaa'ilu dacwa bal taasa asalkii waliba nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wassalaam aalaadkan maanta inagu aan haysaneen dacwada u kaashanayno haddii aalaadkan dacwada ku fidayso nabi maxamed baa la siin lahaa laakiin nidaamka nabi maxamed ilaahay uu siiyey waa nidaamka ugu natiijo dhow in markaaba diintu caalamku dhan gaadho وانا نظام كي وانا نظام وقف انه داله انه ها ان ادو قداشي اديق دقاله كا بخو مال كا بخو وقت كا بخو ديق كا بخو دعان كا بخو دقاله كا بخو ودشيكتي هر waxaad jeceshahay markaas diinta qiimaheegana aad garan dadka kalena diinta aad qiimahooga u sheegi karin hal qisaan igu soo gaabin nimba oday inankiisu damcay inuu jarrabo imtixaan uu ka qaado wuxuu aabo de 20 jir baa tahay 20 ka sano waxaanad cunaysaan ilaahay anigu biisu dhibo biilkeen siinaye maanta waxba ma hayo reerkii bahdi yareed waxba ma hayaane bal wax yari keen buu keenay maanta orada isoo xoogso wixii keen khayr waa inuu hooyo waligii shaqo ma arkin adduunyo kama shaqeeyo hooyadii buu tago hooyo lacag baan rabaa ay sii buudhay mesela $10 وهو معان ويسوى صارت ويسيس أبيه بوي مدوير سو شقيه بوسكلي أبا واكم $10 هو بينا سو دعاء وكقاضي وذاك مركا غرغره دبا هورتي صدب كبخايا بل markaas uu qaado isagoo arkay uu ku rido $10 bul kiyaraabo eego wax isbedel yarkii yara kuma iman hadana maalin dambe uu bal maantana abawaan ku sugaya duca qabatahay ooyadii buu tago oo bal wax yarsiyo maxay $5 uu keeno abawaad ma sha Allah fariid way isagoo arkay dabkii hadana ku tuuray hadana maalin saddexaad islaantii baa tiri war lacagta bariyahan aad iga gurtaa halkeed geysaa wuxuu aabba igu yiri badii shaqo tago waxii keeno deeyo waxa shaqo ma garanay adigoo ma ka qaada markaabada de muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallahi de inuu wax ku falay aban moodaye gargara hortiisa dab ka baxayo buu ku tuuraa markaabada war lacag la gubaanigu ma haye orada aabbaha u shaqo tago waxay wareerinayga tag wariyaa المهم قال حابة قري سور راعي حابة ده سلوا سوق قرا متى عبام سور راحوا وسوق قري هو كاني العقتي بوصوح عليه هو كاني العقتي بو في قبل يلو أبو مركبه لنا عنه وكهيا العقت بوقته هذا يقول هو إيه والمحاجر يقول ما أنتو أبو العقت ورده ويكدوا انتهي ما أنتو وقال كان ضبك كذا ديابو ومحل ودا يا تيورا بصوني كبريين ما تيورا هويا كسو قادية لكن ما أنا صوص الله يستاهل ما فهمتين ما نملي دين شيء قيمه سواء قرن مركو يا دعان يا وقت وكاغلو ده وحبك قلين ما قرنيش قيمه
marka diinteenna macaan ilaahayna siiyey inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oon habeenka jimcahana markaska imanno oo masaajideennan maasha allah dhalinyar badan oo khayr badan baa ka dadaalaysa iyo macallimiin iyo culummo badane inaad dadaalkaa diinad inakuna qaybteenna ka qaadano wada niyooda insha allah